السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو فيديو عصب هالكان قد داونيسنا كانالكنا شعر سكسو نقد وناكسن أو عن ما أنتوا إذين صار نقضي ما شاء الله إن قرمان سكين دم بيسدي أنا وصان أوضح الله نصار سكسور فرينو كرسي جيجي يقول كيجي يرابع نميد الحمد لله شكره إن الله وإنبات كيناي فصح دير هدي ما شاء الله صار نقضي إن برنامج يدني دب أي وبلا مضنا إن شاء الله لكن intaana mawduuceena maanta guda garin fadlan isku day adaa ku cusub tahay asxaabta igu cusub horta soo dhawaada ayaan leeyahay waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan kanaalka ha ilmaaminaa subscribe na saarto muuqaalkan haday ku cajibiyo like instagramkayga halkan ayaan kuu soo dhigayaa iga soo follow garee inshallah maanta mawduuca inoo wada waxay tahay mawduuc muhiim ah oo dadkeena u baahan yahay aniga waan safraa sidaad ogtihiin mar walba waan safraa laakiin safarkaas aan safraayo waa waxyaalo badan baa ka dambaysa micno badan baa ku jirta maasha Allah de safarkeygana khayr buu ahaa laguma qasaarin wax badan oo faa'iido leh aniga waan soo helay maasha Allah sidaad ogeedeenba familygeyga ayaa la kulmay aad iyo aad wax badan baa ay dhahdeen familygaaga aawina juu familygeyga halkan ma deganaa familygeyga qaarna Turki bay joogaan qaarna Soomaaliya qaarna adduunka kale joogaan marka qaybtii Turkiga joogtay ayaan la soo kulmay maasha Allah Istanbul soo ayaga ayaa waqti fiican la soo qaatay alxamdulillah waan ku faraxsanahay familygeyga quruxda badan inaan waqti la soo qaato halkan sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan asxaabteeda sharafta leh ee igu soo dhaweysay magaalada Istanbul aana kala reebeen si qurux badan waliba igu soo dhaweysay soo dhaweyn ii sameysay si socod bye ii sameeyay inta joogay ila caweynay ila farxayay ila qoslayay runtii yani kelinimo ayaan u bartay qof kali ah ee socdaan ahay sidaad aragteen laakiin marka xagga tag waxa la iga dhigay bulshaawiyad oo bulshaawiyad waa iska ah laakiin yara kiligay baan iska ahaa wad ogtihiin alxamdulillah bulsho badan baa soo bartay asxaab kala duwan baa soo bartay dad kala duwan baa soo arkay wadan kala magaalo kala duwan ayaan soo arkay dhaqan kala duwan maasha Allah waxyaalo badan oo la soo koobi karin maanta maxaa rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo taa anis faa'iideysto waa gooniba laakiin taa idinka idin wado faa'iido weyn runtii ayaan idin wadaa waxaan idin soo arkooday ama idin soo arkay isbitaal aad u weyn runtii oo ku yaala Istanbul oo casriyeysan wax walba oo loo baahan yahayna ay ku yaalaan ama ay ku dheelatiran yihiin wax walba de loo baahan yahay runtii caafimaadkii kala duwan cudurrada guud wax aysan daaweynin ma jirto runtii qaybo badan buu kala leeyahay isbitaalkaas anaa tagay soo martiyay dhaqaatiirtii la kulmay dadkii la kulmay xataa Soomaali badan oo maasha Allah oo waxa jooga xataa turjumaana ah halkan waxa weeyaan dhakhtarkii xididada iyo neerfaha maasha Allah wax dhakhtarkan wax uu dhameystirneen ma lahan indhaha hadaa rabtaan fiiqitaankiisii waan leeyahay qofkii indhaha maaragtay ka jiran oo kale way daaweynayaan way fiiqayaan waa qolkii oo qalabeysan makiinadihii waxa yaalo kale wax walba oo de aaladii lagu qalabeynayo qofka indhaha lagu fiiqo marka gacmo furan ku soo dhawaada insha Allah qof walba oo indhaha raba in loo fiiqo ama indhaha ka xanuunsan isbitaalkan uu ku hayaa daawadii waxaweyaan de isbitaal aan dhihi karo aad iyo aad baan ugu baahannahay haddaynu nahay Soomaali ahaan isbitaalkaasi waxaan kusoo arkay oo muhiimka aan ila wadaagayo waxa ay tahay dad badan baa wadankeena jooga oo runtii aad u xanuunsan aan anigaba mar walba familiyadeyda kamid ahaayeen oo aan maqlayay ama dad badan oo mar walba sida ay Turki ku imaan lahaayeen ay ku adag tahay markaas si fudud insha Allah waxyaalaha idin soo arko waxay tahay dad badan oo waxaan arkay oo lacag badan laga qaadanayo 4500 keen $5,000 keen caafimaad ayaan ku soo saarayaa Turkiga aan ku geynaya caafimaad ayaan ku soo qofkii oo dhibaataysan oo xanuunsan oo aad tacbaan waa oolita baa waxa la sii leeyahay $5,000 keen ama $4,000 dadkaasna kama soo horjeedo waa dad ganacsanaya laakiin qofka waxa fiican oo xanuunsan oo walaalka inaa u naxariisatid taas ayaa idamqisay aniga aan maaragtay ka dhidhiyay aan u dulqaada waayay marka chance aad u wanaagsan ayaan idin soo helay qof walba oo xanuunsan oo wadankeena uu joogo oo Soomaali ah
oo aad u xanuunsan ama xanuunsan u ansayd ama aad ilaahay horta ha caafiyo dadka xanuunsan laakiin waxaa loo baahan yahay dhaqdhaqaaq iyo inaad meelo eegti soo maaha marka turkida saa u ognahay isbitaaladooda aad bay u wanaagsan yihiin dhaqaatiirtooda aad bay u wanaagsan yihiin qalabka way haystaan way dhammaystiran yihiin qofku ilaahay ku caafinayana dee waa alla ayaa la garab gelaya marka ani ahaan waxaan aan idin hayaa sida uga soo bixi lahaydeen muqdisho ama soomaaliya oo dhan meel walba aad ka joogtid somaliland sidoo kale jabuuti afrikada wadan walba yacni soomaali aniga caawinaya ile soomaali baan ahay marka soomaalida ku dhibaataysan oo xanuunsan oo la qaabay usoo baxaan si lacag la-aan ah buu kugu soo wadayaa invitationkaagii fiisahaagii waxaa oo dhan asaga kuu diyaarinaya asaga kula howlgalaya asaga wax walba kula sameynaya markii lagu keeno wadankii Istanbul markaad timaadid airportka laga soo qaadayo hotel ama guriga aragti lagu dejinayo kadib isbitaalka lagu keenayo ilaa qof xanuunsan baa tahay intaasoo dhan shaqaale loo carbiyay waxaa jooga ayaga dhan maaragtay u firfircoon qofkaasna markaas lacagta oo lagu daaweynayay bis baa laga qaadayaa laakiin toos Soomaaliya uga soo baxaysa ilaa Istanbul ay imaanaysid shil lacag lagama qaadanayo laakiin shardiga waxa uu yahay qofkaasi waa qof xanuunsan inuu yahay qof ma ahan tahriibaya lagama rabo qof oo maarta wada garanaysan anaga dhan Istanbul iyo Turki wax wanaagsan inta u maleeno aan dhahna okay wadanka Turkiga aan aadaya dalxiis rabaa ina si tahriiba rabaa maya fiisahan aad idin wado ma ahan dalxiis ma ahan fiiso oo aad maaragtay iskaga baashaalaysid laakiin fiisahan waxay qusaysaa dadka xanuunsan oo runta u xanuunsan oo liita oo caafimaad u baahan baan aniga aan ka saacidayaa qiimo macquul ah oo dhakhtarka lagu daaweynayo aad iyo aad waa idin soo arkay saanay u egyihiin qololkoodii nadiif weeyaan waad arki kartaan soo halkan waxa weeyaan qaybihii markii dadkii la qalayay sariirihii la seexinayay qololka aad bay u badan yihiin isbitaalkan aad buu u weyn yahay isbitaalada ugu weyn buu ku jiraa wadanka Turkiga maasha Allah qololka waa kana qofka markii la qalo la seexin doono fadhigii baa u yaala sariirtii baa u taala qofka daawadiisii halkan loogu keenayaa qolol waxay haystaan waasica waxay kala haystaan maasha Allah qolku qurux badan yahay musqulihii bay haystaan waa musqulihii aad u waaweyn waasica وكذا ما شاء الله قلال كان قروح بدن أي ليهين مالي جوبيه عفمات أي ليهين مسقولو نظيفة بليهين والله رنتي وأدب إذن كجسو أركوضي وإسبيتال ضد بدن الصومالية أيا كوتشري من يسودو بكرين لكن ضد بدن الصومالية أيا كوتشري وحنوسن الله عافية يعني الله يهاي أوكي ما شاء الله دكتورتي إلتا أيا هذا تشوجا قيبي سكال الدوان دكتورات بايا ما شاء الله يعني قفي إلتا ودق يسوون نظيفين إلتا وقلكي شقدة كسعتي هذا قلك وواسع ضد كسي ونفسهم بيجي ونظيفين يا دقيقتنا بسمه هو الجوين يا مركا قلبات يو لنا ويا لان تركيا ما أكتين ده قبائل كائنة كور مرسيين ما شاء الله دكتورك سودو أيام كلها هاي وكما سنت هاي سيدا عاد ما ركتي كانت كان نص سي إنه وحير عن كاورستو أو إلكا كوسابسن Hocam hoş geldiniz diyor kanalımıza. Sadece dişle ilgili birkaç soru sormak istiyorum size. Tabii, buyurun. Okay, ما شاء الله waxaan ku weydiinayaa marka su'aalo yar yar ah dhakhtarka dadka ugu badan oo idin yimaada waxa koowaad aad u qabataan waa maxay oo dhanka ilkaha ah Benim kısa bir sorum var diyor. En çok gelen ilk istediği şeyleri sizde diş anlamda ne talep ediyorlar hocam diyor. İlk istek estetik oluyor. Estetik kaygılarla. Diş bozukluğu, çapraşıklık vesaire olanlar geliyor ve diş eksikliği yaşayanlar geliyor. Özellikle ilk buhurayı diyen ve estetik yani adres iyo ilk buhisi weyn belki ka buuxiya loo buuxiyo intaan bay weydiiyaan caadi. Okay, so waxay buuxiyaan ilkaha iyo caawiyaan cadeeyaan ilkaha marka waxyaalaha ugu waaweyn su'aasha labaad waxay tahay marka may sameeyaan ilkaha qofka xanuunayo oo kale ma daawiyaan mise bis way caawiyaan oo kale mise way daawiyaan ilkaha Genelde diyor ki hocam bu dişleri tedavi amacıyla mı yapıyorlar yoksa sadece nasıl desem estetik anlamda mı?
tedavi amacıyla. Zaten onlar beraber gider ama genelde tedavi amacıyla hareket ediyoruz. عادي والله والله لو قطع لكن أنا شغلنا وحنا قفكي تداوي نويا. Çünkü diş eksikliği ciddi sağlık problemlerine de sebep olabilir. يعني هذا الكه وكنت هاي وكان كلا دباتو قفكو ودباتو وكان كلا مركا شغلنا حوالي قفكي تلكها عادي وداوية وبلا دباتو ولا كيس صوت كنت عندنا. okay maasha allah dhaqtarku wuxuuna leeyahay ilkaa waana daaweynaa waan nadiifinaa waan dhaqnaa wax walba maasha allah waan ku mahadsan tahay waxaan leenahay dhaqtarka sida su-aalaha quruxda badan nooga jawaabtay asxaabteedu way ku imaan doonaan marka waa gacmo furan kusoo dhawaada. Diyor ki hocam çok teşekkür ederim baktığın ayırdığın için. Rica Arkadaşları ederim. buraya size olacak. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Soru da var okulle. Hayır, ayak ıslah nitroga. thank you. Welcome. qiimo dhimis fiican baan inii sameyn doonaa si wanaagsan baan inii soo dhaweynayaa gabadhiinii baa maaragtay idiin soo arkootay inaan maanta dadkaygii bulshadeydii wax la qabto ama aan la dadaalana waa waxaa aad aan ugu baahanahay aan jeclaaba weligeyba marka aniga youtube aan bilaabayo ka horba waxaan jeclaa inaan bulshadeyda waxa aan awoodo inaan u taro ama aan wax la qabto dadkayga dhibaataysan soo maantana fursad cajiiba maasha allah anigana ilaahay ajar buu iga siinayaa idinkana caafimaadkiini iyo farxad bay ii tahay inaan dad walaalahayga aan caawiyo kuma eka wadankeena bis Soomaaliya ama Somaliland ama Djibouti bes kuma eka ama Soomaalida Kenya joogta laakiin sidaas oo kale dad badan qurbaha jooga dhibaataysan kiliyaha wadnaha beerka kansarka adiga maxaa la cudurada in af ku sheega marab laakiin wax walba oo xanuuna way u dhameystiran yihiin dhaqaatiir mid walba jooga kii indhaha jooga kii wadnaha jooga kii beerka jooga mid kasta kii lafaha kabaya jooga sidaas oo kale ilmaha gabdhaha raba ilmaha in lagu beero ilaa ilmaha siiyo gabdhaha raba oo kale ilmaha lagu beero kale sidaas oo kale way hayaan caafimaad yani guud ahaan baaba ku leeyahayba cididaas haday ku xanuunto daaweynaya dadka qurbaha joogo ama Norway ha joogaan ama aniga ii dhawaadaan Sweden joogo ama meelahan jooga oo xanuunsan qofkii passport weyn haysta uu batagi karaa saacagiisa uu tagi karaa discount ayaa lagu sameyn doonaa insha Allah hadaa ka socotid aniga hadaa iga socotid insha Allah si qurux badan baa lagu soo dhaweynayaa airportka ayaa laga doonayaa sidaas oo kale isbitaalka baa lagu geynayaa waa lagu caawinayaa adoo lagu qurxiyay ayaa lagu soo celin doonaa guriga ku soo noqon doonta insha Allah waa wiilasha raba timaha inay beertaan waan leeyahay timaha qiimo dhimis oo fiican baa ku hayaa aad ku beeran kartid ya dadka gabdhaha qurbaha joogo aslanba ada qof walba oo xanuunsan oo ilaahay xanuun u keenay ilaahay ka dulqaaday qof walba oo meel yar laga jiro oo turka uga baahan isbitaal ama daawo uga baahan insha Allah ila soo xiriir WhatsApp-kayga ayaan halkan ku dhigayaa anaa dhaqaatiirta kugu xiraya anaa wiilasha kugu xiraya si qurux badan baa lagu soo dhaweyn doonaa insha Allah wax ka halaabayo ma jirto anaad iga socotaa walaalay qaaliga ah waxyaalo badan baa jira oo dhaqtarka waxeeyo gabdhaha raba maaragtay inay xeerta baruurta maaragtay waa laga yareynayaa gabdhaha baruurta raba xataa baruurta waa laga miiraya laga yareynayaa gabdhaha maxaa la lahaa adiga gabdhaha qurxinta raba qurxinta waa ku diyaar ya ani ma dhahayo wax dambiya sameeya laakiin wax walba qurxina way sameeyaan way hayaan fahantiin yes alxamdulillah so aniga horta muhiimkayga waxay tahay inaan caawiyo dadkayga xanuunsan oo meel wax usoo maraan la qurbaha hadda Norway meeqaa joogta oo maaragtay raba inay isdaaweeyaan meel ay aadaan aqoonin amna dadka waxaa niisii fududeynaya oo kale dad badan baa jira aan garanayo ama aniga kamid ahay xataa isbitaal u baahan isbitaalkii marka uu waqti yar haysta oo markuu Istanbul tago isbitaalkee fiican kan raadi aniga kamid ahaa waxbaa u baahanaya wax raadis maanta isbitaalkee fiican baa ku heynaysaa laakiin isbitaalkani waa sidan waa kan idin soo arkooday qololkii dhalmadu leeyahay qololkii wuxuu leeyahay yani qeybo kala duwan qeybta qaliinka qeybta dhalmada qeybta ilmo beerista qeybta qaliimada kala duwan qeybta cudurada qeybta dadka lagu qorxinayo qeybta yani waa baaxadiisa aad u weyn yahay marka isbitaalkan oo easy-ga oo fudud waa idin soo helay runtii isbitaalo badan ayaan soo indheeyay maxaan dhahaa isbitaalka ugu qiimaha fiican waa asaga weeyaan
waad arki doontaan qiimo macquula oo weliba markaad dee aad naajuu ka socotidna qiimo fiican dhimis lagu sameyn doono insha allah weliba dadka ugu horeeya aada isbitaalkaas qiimo fiican baa loo sameyn doonaa qiimo dhimis fiican naajiba caraala ayaa ka socotaan waxa idinka halaabaya ma jirto soo dhaweyn qurux badan baan idin sameynayaa taasna anaa mas-uulka ah wax yar hadday idinka soo gaarto aniga baad maaragtay igu soo noqonaysaan ama aniga ayaad igala xisaabtami doontaan dadkaygana dee meel qaldan ama meel xun uma soo arkaayo dee sidaad ogtihiin meesha ugu wanaagsan meesha ugu fiican baa idiin soo baarbaaraya waa fursad aada u fiican ay idiin soo helay marka dadka Soomaaliya joogo waxaan ku celcelinayaa oo aadka u xanuunsan oo rabaan meel wax u maraan la oo isbitaalkii ay aadi lahaayeen weysan ama fiisihii ayaga idin sameynaya dhaqaatiirta baa idin dalbeysa niila sameynayo ilaa aad ka imaataan ilaa isbitaalka niiga geynayo yacni waxyaalo badan marka information badan waa idin hayaa laakiin insha allah dee haddaan maanta dhan dhaho waxaan ka faaloonaya isbitaalka iyo wixii waqtiga ayaaba nagu dhammaanaya laakiin numberkayga ayaan mar labaad halkan idinku soo qorayaa wax walbo information aad rabtid ila soo xiriir aniga ayaan maaragtay kula socodsiinayo ama aniga ayaa kuu sharxayo ayagiyaan kugu xirayaa kulli dadka qurbaha joogana uu u furaya isbitaalka walba isbitaalkaas uu yaalaa wax walba xanuun walba oo ku hayo uu ka daaweynaya insha allah waxa kuusii dheer soo dhaweynta runtii soo dhaweynta wiilal baa halkaas idinku soo dhaweyn doono gabdhaha halkaas idinku soo dhaweyn doono turjumaano aad luqada u taqaano oo maaragtay loo carbiyeeyo wax bartay oo Soomaali ah oo walaalihiina baa buuxa nii tarjumi doona insha allah waxba niigama halaabi doonaan soo qof walba u baahan inaan ka caawiyo arrimahaas quseeya isbitaalka ama wadankii ha joogo ama ha joogo qurbaha wuu ila soo xiriiri doonaa insha allah aniga ayaanan aan isku kin xiri doono calankii koowaad waxay ka dhigay Soomaaliya turkida waa dad wanaagsan waxaasaa hadee calankeena Soomaaliyeed halkaas ka banaya waa lagu qasbaya marka inaad timaadaan dhaqtarkaan discount fiican buu idiin sameyn doonaa soo dhaweyn qurux badan dadka si fiican buu ula macaamilayaa turjumaano Soomaali aad u badan way joogtaa isbitaalka halkaas ayaan uga baxayaa waan igu dheereeyay videogan marka insha allah wixii kalena Instagramka Snapka ayaan wax dhan idin soo dhigi doonaa Snapka waa igala soo xiriiri kartaan Instagramka waa igala soo xiriiri kartaan WhatsAppka waa igala soo xiriiri kartaan wax walba oo faahfaahina anaan niga jaahil bixin doono insha allah waa kaasa waxaa leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada fiisaha si free ah ayaan maaragtay lagugu dalbayaa lagugu keenayaa yaa laga helaa waxaas oo dhan xagee laga helaa waa ii duceyn doontaan dad waaweyn habaryaal iyo eedooyin badan dad waaweyn oo abtiyaal leh waxaa jira oo u baahan ama rabaan arrintan ama dadkooda ka xanuunsan yahay oo meel u maraan ama fursad weysan marka insha allah dhammaan Somaliland Soomaaliya Djibouti meel walba oo Soomaali ay degto insha allah waan iga soo fududeyn doonaa videogeenan muhiimka iyo dulucda aan ka lahaa intaas ayuu ahaa insha allah waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen aad ka warbogoteen waxaan igaga tegayaa hadde sidaas iyo amaana allah